dib u dhiska iyo dayactirka taalooyinka Xawataako SYL Dhagaxtuur Sayidki iyo Axmed Gurey waxaa lagu hirgeliyay barnaamijka isxilqaan ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta xariga ka jaray taalooyinkaas oo dadka Soomaaliyeed ugu fadhiyay micno weyn kana turjumaya taariikhda iyo halgankii loo soo maray dalka. halkani waa taalada Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan oo la dhisay sanadkii 1974 isgooska ay ku taalo waxaa loogu magac daray sayidka oo bidaamiyay ilayskii xornimadoonka dalkeena kadib markii uu unkay cududii daraawiishta ee halgamayaasha Soomaaliyeed ay ku wajaheen gumaysi Ingiriiska. madaxweyne Farmaajo oo warbaahinta kula hadlay taalada SYL waxa uu sheegay in cid waliba oo door ku leeyahay halgankii dalka ay mudan yihiin in la qiimeeyo. ilaahay baa mahad leh oo runtii maanta noo suurtageliyay maanta halkan inaan kulligeen nasiib u yeelano fursadan aan dib u fureenno muddo dheer kadib taalooyinkii qaranka oo ahaa astaan iyo taariikhda dalkan uu lahaa ay ahaayeen runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo sharaf weyn ayay noo tahay inaan qayb ka noqonnay in aan dib u soo celinno xusuustaas iyo maxaan ku raahdaa taalooyinkaas taariikhda noo leh astaantana dalka u ah dal walba wuxuu leeyahay astaan wuxuu leeyahay taariikh iyo wuxuu leeyahay dad ay ku faanaan ama halyeeye ha yiraahdaan ama hero ha yiraahdaan oo dhinac walba ah runtii annagu heroyadeenna waa badan yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay sida maanta aan u xusnay taalooyinkaan u samaynay kuwa kalena inaan u samayno taalooyin oo waddankan contribution wax badan ku darsada wax badan u geysta oo wanaaga dalkan runtii waxaan aragnaa sababtaan u xuseenno aan ugu samaynayn taalooyinka ay tahay inay qayb ka ahaayeen halgankii dalkan soo maray. madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu bidaamiyay in qarannimadu ay tahay wax aan la gaari karin dawladda Soomaaliyana ay waqti ku bixinayso soo celinta saameyntii Soomaaliya ay ku lahayd caalamka. intaas aan qarannimada aan haysanay qarannimadeena ay xoog lahayd midnimadeena ay xoog lahayd dadkeena wadaniyadoodii ay xoog lahayd iyo midnimadoodii waxaan gaarnay meel annagu aan Afrikada kale wax ku tarno oo aan gacan ku siino kuwa naga hooseeya kuwa raadinaya inay xorriyadooda helaan oo aan tababarro u sameeyno aan dhaqaale ku siino si ay xorriyadooda u helaan kuwa is haysta oo dagaalada ka dhaxeeyana inaan nabad dhex geenno ciidan dhex geenno heshiisna ka dhex sameeyno intaasna waxaan ku helnay waxa weeye meesha aan ka taagnayn Afrika iyo meesha aan ka taagnayn caalamka meeshaas way meeshaan u socono marka dawladdan waxay u socotaa intaas u socotaa waxay ka hadlaysaa waxa weeye in qarannimadii la xoojiyo in lagu dhiso qarannimada wadaniyad lagu dhiso midnimadii la soo celiyo. dhalinyarada ayuu la dardaarmay madaxweynuhu waxaana uu muujiyay in dawladdu ay garab taagan tahay. dhalinyarada marka waxa weeye dhalinyaradii hore idin kama fiicnayn laakiin waa idin ka wadanaysanaayeen aan oran karaa ama maybe waa idin ka dhiiranaayeen laakiin idin kama aqoon badnayn waxay fahamsanaayeen sida kaliya oo gumaysi looga adkaan karo inay ahayd formulahaas aan sheegay maantana annagu haddaan nahay dawladdii waa ku dhiirigelinaynaa dhalinyarada cid walba muwaadin waa ku dhiirigelinaynaa waan ku faanaynaa taariikhdeenii hore aan soo marnay oo ahayd intaasaan sheegay. dib u dhiska taalooyinkan iyo goobaha kale ee taariikhiga ah waxay muujinaysaa baraaruga dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan ilaalinta iyo dib u soo nooleynta sooyaalka ummadda Soomaaliyeed. Muxyidiin Macalin Cabdullaahi warbaahinta qaranka taalada SYL.